dhaqaalihii siyaasadii xukunkii xoolihii noloshii wax kasta way qaateen nimanka odayaasha ah ee muqdisho ka taliya safaaradihii oo dhan waxaan meel dhoweyd baan ku yidhi war sidee miyaydaan xishoonayn in reer balcadna 9 safiir yeesho puntlandna 1 safiir oo qaahiro ay yeesho misal kaasaabanu ka qaadaynaa haddo waxaanu loo dhiibayaa daahir geli 1 safiir reer puntland ummad aan waxba Soomaaliland iskaba daaba wixiiba markay qaateen hadda waa 9 reer balcad ilaahay goog yahay oo Washington oo Djibouti oo Nairobi oo dunida bale oo Serbia oo waxaad wada garanaysaa oo Belgium oo Holland oo EU waa family war wax walba hadda qaadateen oo shaqaale qaadateen oo international organizationski oo dhan isku wada qorteen dadka dhibaatada ka daayay tiibay iga diiday xooli bay joojiyeen neef kasta lacag baa saaran diyaaradii bay joojiyeen hawadii bay joojiyeen fiisayaal bay dadkii shacabka ahay maatada ahay ku soo rogeen oo aan laba jeer awoodin tigidhadii bay ka wada kansaleen baasaboorka 400 buu ka marayaa Hargeysa lacagta oo dhan xamar baa qaadata 400 ba ilaahay goog qofka yar laga yaabo inuu xaf guriga u kireysan yahay 20 ama 30 dollar baa uga soo hadhay Hargeysa jooga scholarship lama siiyo umada war waxan wixii ba qaadatay adaba dhibaatada ka daayay dhibaatadii baa laga diiway wuxuu soo gaaray madaxweynuhu inuu yiraahdo waan kibir jabinaya taa waxaanu ka diidnay mid ilaa baraare ilaa seyl xukuma boqolaal kun oo ciidan haysta oo boqolaal diyaaradood haysta sababa nin dariiq kaliya oo ka hadda ka daamara oo aan dalka Soomaaliya meel kale cag saar karin kama yeelin ninba wax laga sheegay maalintii ay SSDF baxaysay xil kasta oo dalka way haysteen ragga SSDF qabta taliyaal bay wasiirre ahaa waxa laga yaabaa reer kaliya inuu 5 wasiir lahaa ragga SSDF sameeyay madaxweynaha rabnaa iyo mayabal madaxweynaha dib inuu ugu dhiga ayay 10,000 oo wiil lafahoodu doole iyo mid ugu daadsan maanta waxa leeyahay qofba garow ma tagi karo war wallahi intii ay ku duntay inta way ka yaraan badan madaxweyne laga hadlay war wallahi intii ay ku duntay haday safiirtay haday ay maarayaal tahay haday sidaas oo kale Soomaaliland ragga meesha joogayba madaxduba ee talada hayayba reer Soomaaliland bay ahay intay kaga tagan inta 100 jeer bay maantana meel laga soo celin karaa ma jirtee aynu la faheena caynsan aynu kala badbaadno Soomaali waxa laga yaabaa inta kale uu sheegay 5 saac ka hor waxaan ka sheekeynay marxaantigeedii Soomaalida marxaantigeedii waa sanatar Dubbe waa sanatar ku matalayay gobolada Somaliland hadal ku matalayay aka dhaqaaqay goyso ka qaat taraha goysan biya goroshitii siiya waatan waxaan ilaahay xasan midnimadii meeshaan idin sheegay bay gashay intuu la laabtay uftada gashay midnimada ma rabo hawiyana midnimada ma raba midnimada ma raba aqliga ay aaminsan yihiin waa wax la yiraahdo idinka la idin baahan bal ilaahay baan idinkugu dhaashay dhageysta videogan kalena ila dhageysta Somaliland dadka joogay Somaliland nimada jecel waxa fiicnaan lahayd inay nagu qanciyaan waxa ay la baxsanayaan maxay haystaan hanti iyo deeq iyo wax walba iyo munaafacaad ya wax ugu badnaaya dalkii Soomaaliya isku dhihi jiray wax ugu badnaaya oo lahay koonfur yaalaan حاجة واحدة بدون ما يعلن مركا حتى هذين وقن عيان واحد في عنان هيسنا وحنان هيسنا ولا ليالو أنا أقولين إن أنا لا أنتيني نداي أنتين عن أنقاضني حتى وحري حالي مركا عندي جو إلى هيدا ولا جو أبا حسن وحو آمسيه فكرة ده نمكاس هوية نكاسي هلكا هالكالية وحسن بريسو ما هويل يروسك هالي ما وريه رجع الضايع وريه وامدك الجغرافيا دولك iyo wuxuu dhan iyo dalkaas wuxuu kooban yahay iyo soo koobo oo tago oo barnaamijyada sameeyo ma aha qof xog laan haysama aqliga xamar yaalaahay waxa weey
أريا حمر محق إيو موس إيو عنبا ياله أريا بنتلان إيو سومالان موس ميا لغا هلا مايا أريا معنبا لغا هلا مايا أريا محقا لغا هلا مايا أريا موفر ما سميسين يقانا أريا موفر أريا محي كون نولانا يا وبختيه يان محي كون نولانا يا ودمالا يانو أغلياداس وي أغليادا حمر لوجو هجامي عاصمة كنت هاي من نمدا كل هذين السيارة الربعين أكبريستي صدر شنطة سنة إسقنا يسي إسقر هنا يسي سوا ربنا هاي مرخانتي كان هاي من نمدا أنسوين من نمدا أنسوين نام هاي دهش واحد دهش شيء إن أمسيهين ده تشنكره أو ده هو ده قبسكره يعني هاي ده واحد أنا الله أجيك سوين أنا هذا هو ماشى دارتي oo maanta adduunku waa macdan iyo khayraad resource dhulka laga soo baxo shidaal iyo macdan baa adduunka la isticmaala oo dunida la sugu faana moos iyo canba baqbaqa halka yaala moos iyo canba baqa wuxuu aaminsan yahay goboladaas inay waxba ool meesha shidaalku yaallo ee dahabku yaallo ee maanta Soomaaliya dahab ka qodato waa Puntland iyo Somaliland war aqliyada wax ma lahaan ka dhaylaan ku dhashay aqliga wax ma lahaan ka dhacay والأبابل يا حسن واسكميد إنما دول أبابل يا حسنين وإحنا ما يجينا كنا والموسى سيدو إحنا يجينا كنا النكار حمر أريام حكمي هيستان كواس مايا أريام موي هيستان ديال الكورو يهي موس مية هيستان مايا أريام من نوران كنا نقام مارما عقل ياسا حمر ياله من نمو بمرك من نمو كلمة دريا من نمو إن ور تصايا يبان سينية ور أنيجا waxa ay dhashay sagaal baa ay dhalatay hooyada yaa bahay dhalay sagaalkaas war kuwaan is salaamin badi kuwaan is salaamin kuwana saaxiib ilaahayaan maxaa kalifay warde hadda uur hooya ka soo wada maxaa kalifay de waxa kalifay dadka inta isfahmi ka dhac israacda walaalkay hadda nolosha ku fahmi weyno de banaankaas ka baraya walaalkay in wax gaaraan ma rabo أنا أصلا مرة بيني وحجارة لكن دي أسوي كلي سهوية كصباح أنا كلي أنا هوية كصباح مركب بنان كاسن كامري كرنايو قفنا قف كمدة جني مني ماذا هدي اللي يسلف فهم وايو أو قف كرناو عانا أي كتشرت نبضون أبابل اللي حصل أي كتشرتو أي تاجيه عليها هرجيسي جرو محكمية له ورحيه ولا يا المحقين الدير تا أنا قونا دنت إذا قبصنا هيا انت اسوي هذا والقف كستاي قفك الانتي والنوران كرا ورمن ما شيء شرعي يساق ايغا نولي من ايغو سيده علن iyo midnimo wata oo la soo aqoonsaday bay dhahan walaalayaal he aan ku darsan ayagoo bila shuruud la yimid maanta ayaga la laabto midnimada ma hooyadii keentay war midnimada horta yaa keenay midnimada aad sheegaysaan yaa keenay isweydiiye de ayaga keenay ayaga baan la laabtay islaantu ayada la xadeedii lahayd qalatayna war islaantu ayada la xadeedii lahayd bi qalatayna war dadku tageen iyo ka dal haramad umada ka dal haram bala idin la midowday